dowladda federaalku waxay ku soo qaaday duulaan qaawan Jubbaland oo saddex waji leh wuxuuna kala yahay qodobka koobaad waxay ku tala gashay in dadkeeda isku layso qabaa'il isugu dirto ciidamada jooga amniga ka shaqeynaya walaalaha isgarabsanayay ay isku horkeento isku layso waan idin dhamaystiri doonaa muuqaalka soo dhawaada saaxiibayaal oo hadduu idin soo gaaro si shargaray meel fogna gaarsiiya siyaasigan waxaa la yiraahdaa Axmed Xuseen Jaamac wuxuuna ku nool yahay magaalada Garbaarey ee xarunta gobolka Gedo ayadoo wada ogtihiin in khilaafka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka oo marayo meeshii ugu sareysay waa siyaasiga kaliya ee asoo Garbaarey joogo ku dhiiraday inuu yiraahdo dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gobolka Gedo way ku soo duushay dowladda federaalku waxay ku soo qaaday duulaan qaawan Jubbaland oo saddex waji leh wuxuuna kala yahay qodobka koobaad waxay ku tala gashay in dadkeeda isku layso qabaa'il isugu dirto ciidamada jooga amniga ka shaqeynaya walaalaha isgarabsanayay ay isku horkeento isku layso kaas wajibu ahaa wajiga labaadna wuxuu ahaa in dadka Soomaaliyeed nidaam federaal oo qaatay nidaamkaas federaalka Jubbaland dadkeeda in la qabsado oo 4.5 bay dadku wax ku qaybsadeen Soomaaliyeed in isir ahaan loo zuuliyo oo gobolka la qabsado state-ka la qabsado oo dad meel kale laga soo raray state-ka la dejiyo nidaamkiisa la zuuliyo iyo dadka deegaanka u ahaa kaasina duulaan labaad buu ahaa marka qodobka koobaad ayaga la isku diro la isku baabiyo qodobka labaad oo ay ku tala gashay dowladda federaalka oo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka yahay wuxuu ahaa in state-ka la qabsado oo dadka degan la isir zuuliyo maadaama nidaam federaal uu jiro oo dadkaanu qof walba 90kii burburku markuu dhacay wixii ka dambeeyay nidaamkaasi Soomaali ay qaadatay si loo kala badbaado duulaankii la mid ah 91dii ayuu ku soo qaaday state-ka si dadka degan uu isir zuuliyo oo dad kale oo meel uu ku soo raray uu ku abuuro waxaan rabaa inuu afka bulshada rayidka ku hadlayo gobolka Gedo qaasatan Jubbaland waxaan soo dhaweynaynaa oo aanu ka mid nahay annaga reer Jubbaland baan Gedo waa Jubbaland maalin walbana in duulaan gobolkan inta lagu soo qaado la isku dayo gobolkan systemka uu ka tirsanaa iyo maamulku ka tirsanaa in laga jaro waa wax soo noqnoqday oo foolxumo ah waana laga tashan doonaa insha Allah tacaala mana dhacdo qolo walba isku daydo waa ku jaban anagu Jubbaland baan nahay waxaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay bulshada rayidka gobolka Gedo anoo afkooda ku hadlayo doorashadii dhacday ee madaxweynaha Jubbaland loogu doortay mudane Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenadiisa ayaan soo dhaweynaynaa maxaa yeelay qolo walba nidaam federaal ah la qaatay dalku waa federaal Jubbaland waxay leedahay nidaam dastuuri ah baarlamaan ayada u madax bannaan doorashada 75 xildhibaan oo baarlamaanka Jubbaland oo qof walba wakiilka oo reer Jubbaland ah dooratay mudane Axmed Maxamed Islaam saasuna madaxweyne sharci ku yahay annagana noogu yahay annaga dooranay maadaama dadka wakiilka naga ah ay doorteen ninka kaliya ku dhiiraday way ogow ciidamada iyo waxaan joogo dhan iyo maamulkii iyo wasiiradii waxay ahaayeen dhanka federaalka qof joog ka dhigi karana male baa la yiri horta waxa leeyahay Jubbaland in reegaday u shaqeeyaan way barteen hadday abaal leeyihiin Axmed waa geesiga kaliya ee gobolka Gedo jooga la dhigi karaa magaalada Garbaarey asoo joogo oo xaruntii gobolka ah inuu ku dhiirado oo uu yiraahdo dawladdu si dadban bay gobolkan ku timid oo qaldan waxaana sax ah annaguna aan ka tirsanahay maamulka Jubbaland waa soo asayiri saadna u ogtihiin wasiirka amniga xildhibaanli wasiiru dawlihi dhammaan markay gobolka yimaadeen kadib wax yiraahdo Jubbaland baan raacsan shacabku waxooda wala aamusnaa laakiin siyaasi inta shir jiraa'id qabto yiraahdo annagu waxaana Jubbaland ninku dhiirado waa la waay oo aan ka ahayn Axmed Xuseen Jaamac laakiin maamulka Jubbaland siyaasiyiinta gobolka waxay ka dhigteen jaraanjaro ay meel ku fuulaan marbo ay dhooqa kaga baxaan markii ay ka baxaanna recycle binka la iska dhigaa siyaasiyiin badan baa ka mid ah oo barasaabyadii hore oo gobolkan soo maraa ka mid ah mid walba jaraanjara lagu fuulay maantana wax xil ah oo uu gobolkan ka hayo ma jiro rag baa dagaal u galay
wiilka marka dhalinyarada ah la yiraahdo Axmed Xuseen Jaamac kana mid ah siyaasiyiintii isbedel doonka gobolka ka bilaabay garbahaareyna aad ogeydeen intii kacdood ka jirtay Axmed Madoobe la dirarsanaa rag taageersanaa anigaba aan qaybta na ahaabu ah maanta wuxuu leeyahay Axmed waxaan isku darsanay Xasan Sheekh Maxamuud maxaan isku darsanay madaxweynaha dalka deegaanna ma wadaagno oo gobolkan gadaanahay jubbooyinkaana ka tirsannahay Xasan Sheekh maxaan naga dhaxay la fadhiyaa gar ah iyo wixii gardarro ah adinka qaybta commentiga ku kala sheegi doon laakiin aniga maanta waxa muuqaalkan uu soo jiitay waxa waaye waa markii ugu horeysay oo intaan isbedel wadnay ama aan ku jirnay halgankii xornimo doonka ee gobolka Gado Axmed weligii miidiya kuma dhiiran inuu soo istaago oo ka hadlo waad garan kartaa marka waxa maanta ku kalifay oo uu cadeeyay waxa ay yihiin waa aniga warsame xaaji kuna magac dheer birta calanka